Okay, walaalayaal kusoo dhawaada cashirkan waxaan kaga hadlaynaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano stem and leaf plots. Hore waxaan kusoo jirnay other graphs samaydan garan other graphs baan kusoo jirnay waxaan ku bilownay waxa loo yaqaano bar graphka. Waxaan ka soo hadalnay bar graph waxay tahay iyo habkaad u sawiran kartid. Kadib waxaan ku xijinay Pareto charts waan ka soo hadalnay waxay tahay iyo qaabkaad u sawiran kartid. Kadibna waxaan idin tusay time series chartka loo yaqaano time series waxay tahay iyada iyo datada aad u adeegsan kartid chartkan. Waxaan kaloo ka soo hadalnay pie graphkana waan idin sheegay habkaad ku sawiran kartid iyo datada noocaad u isticmaali kartid. Marka maanta waxaan kusoo gabagabeynaynaa other graphs, stem and leaf plots. Wixii ka dambeeya waxa weeyaan chapter cusub baan bilaabaynaa. Marka stem and leaf plots waxa weeyaan sadartiin waa is a method weeyaan of organizing data and is a combination of sorting and graphing. Waa hab oo datada aad ku organize gareyn kartid waana sidoo kale hab oo aad datada aad ku sort gareyn kartid, yani aad u sort gareyn kartid from the smallest to the highest samadan garan. Kadibna waxa weeyaan waana nooc kamid ah nooca graphing iyadaaba graphing way leedahay. Markaad stem and leaf plot dhowr wax bay ku samaynaysaa inaad datada aad habayso soo garayso kadibna inaad graph garayso. Marka it has an advantage of a grouped frequency distribution of retaining the actual data. Grouped frequency distribution waxa weeyaan sidaad ku soo marteen classes ayuu bixinayaa. Marka datadana waxay ku jiraysaa galaasyaashaas, laakiin stem and leaf plot classes uma samaynayso. Isla datadii bay isticmaalaysaa. Soodan gar marka midaas kaga fiican tahay oo wax aanan ku jirin datada ma keenayso. Soodan gar marka midaas kaga duwan tahay grouped frequency distribution. Marka a stem and a leaf plot is a data plot that uses part of the data value as a stem. Marka stem and leaf plot wuxuu isticmaalaya datada qaarna wuxuu ka dhiganayaa stem. Soomaali garan stemka waa taqaaniin geedku wuxuu leeyahay stem iyo root. Soomaali garan stem iyo root iyo leaves buu leeyahay, geedu ay leeyihiin. Marka datada qaar wuxuu isticmaalayaa stem ahaan, part of the data values kalena wuxuu isticmaalayaa leaf ahaan. Soomaali garan to form groups or classes sifa uu hagaajiyo groups or classes. Marka tusaale ayaan qaadanaynaa sifaad u fahantiin. At an outpatient testing center the number of cardiograms performed each day for 20 days is shown. Marka at an outpatient testing center meel oo outpatient testing center waxa weeyaan calaa maalin waxa la sameeyaa operation kala dhaho cardiograms. Waxaan ka wadaa the number of cardiograms performed each day for 20 days is shown. Marka datatan waxay ku saabsan tahay inta cardiograms oo la sameeyay calaa maalin muddo 20 days soconaysa ayuu ku tusaya. Marka maalintii koobaad waxaa la sameeyay 25 cardiograms, maalintii labaad waxaa la sameeyay 31 cardiograms, sidaas ku soconaysa ilaa 20 days ay ka dhamaanayso. Datatan waa 20 days على each day meeqa la sameeyay. Marka waxaan ka rabaa inaan sameeyno constructor lagu dhahay stem and leaf plot for the data. Marka talaabada koobaad ee sameynayso waxa weyn datada waad soo gareynaysaa each column from the lowest to the highest. Martin taasa ku fudud. Marka hadda column kan 25 aad ka bilaabaysa ilaa 32 waa soo gareynaysaa. Soomaaliya waxaad leedahay from the smallest to the highest ayaad u arrange gareynaysaa. Marka 14 baa u yar Soomaa, 14 baa kor maraysa 25 32 36. Soomaaliya column kan kalena sidoo kale aad ku samaynaysaa. Waxaad rabtaa inaad sort out gareyso 31 32 43 52 sidaas aad ku wada samaynaysaa guddigoodba. Macnaha column kasta waxa weeyaan gaar baad u order gareynaysaa from the smallest to the highest. Tabaan hadda inaad samayso waa iska easy, waad highlight gareynaysaa column kasta. Marka meeshan aad imanaysaa data ku dhufanaysaa, kadib waxaad ku dhufanaysaa meeshan aad ku dhufanaysaa Soomaali garan A to Z iyo sort gareey. Soomaali garan sort from A to Z. Soomaali garan hadda waa intaan ku sort gareey, laakiin hadda inaad samayso kaliya saas aad u click gareynaysaa
continue with the current selection aad leedahay sort soo ma aragtiin hadda durba waa ka way isbedeshay 14 25 32 36 sida kan ay noqotay marka almuhim waxa weeyaan guddigood basaasad u sameynaysaa all the columns marka aad talaabatan samayso oo column kastaba aad arrange garayso from the smallest to the highest waxaad imanaysaa talaabada labaad oo ah in aad qaybisid hadda mesela meeshan oo kale wixii 10 ka hooseeya intaan ku qornay 10 tirada 10 wixii ka hooseeya dhaatay 10 ka hooseysa waxa weeyaan xageen ku qornay meeshaas sameeyaan garan wixii less than 10 ah sameeyaan garan meeshanna waxa weeyaan wixii 20 ka hooseeya less than 20 less than 20 لكن of course طبعا كوين ماشان كلنا وحاولين هو less than 30 less than 30 ماشان كلنا وحاولين of course هو less than 40 وحي كير ولكن of course كوين كان وين less than 40 كان وين 30 وكان كلنا نقول less than 50 midkan ugu dambeeyana waxa weeyaan waa less than 60 wixii ka yar marka tan waxay seekin tusaale kan dalka ku qorin waa idin ku talaa laakiin muhiimadu waxa weeyaan meesha ugu koreysa waxaad u qoraysaa wixii daatadaada nooca ugu yar 2 wixii 10 ka yar oo dhan waxaad u qoraysaa column-kan soo martiin meesha hadda u fiiriso 20 wixii ka yar oo laakiin 10 ka badan intaad u qoraysaa hadda fiira daatadeena 13 14 سمعت وكا ماشان كله واحد وفريسة وحي صدام كير لكن طبعا لواتن نكوين مركا أما لواتن يسدح لواتن يشان سمعت أنكرم ميدكال إذا نساس وكله وحي صدام أفرتن لكن كير صدام وحي كبدن لكن أفرتن كير أنت توفريسة وجروب كوبدن انت ناسدو kale wixii konton ka yar laakiin 40 ka badan marka 43 44 45 meeshan ugu dambeysana waxa weyn daatada tan ugu dambeeya waa wixii 60 ka yar laakiin se konton ka weyn marka yani konton wixii ka koreeya marka waa 51 52 57 soomaalidan garan marka saas aad organize garaysa daatada waxa weyn ay ku fududaanaysaa marka annaga fiiri talaabada ugu dambaysa waxa weyn stem wixii 10 ka yar less than 10 طبعا waa 0 umba ka horeynayso ma marka 0 umba noqonaya xididkii leafkuna wuxuu noqonayaa daatadan haysano marka wixii 10 ka yar inta waxaad ku qoraysaa 0 stemku 0 ayuu noqonayaa leafkuna waa 2 wixii 10 ka badan hadda 3 iyo 10 4 iyo 10 waa tiro tobnaad soo ma marka hal baad banaanka ku qoraysaa 3 4 waxay noqonayaan leaves soo laga waa leaf tan hadda marka aad akhriso hadda meeshan marka aad akhriso ma dhahaysto 3 weeyaan waxaad u akhrinaysaa waa 3 iyo 10 meeshan waa 4 iyo 10 because stemku waa 10 leafka laakiin waa waxa ku tusaysaa tiradii 10 ka badan soo laga garan laakiin 20 aan gaarin marka 3tan waa 3 iyo 10 4tan waa 4 iyo 10 because hal baa inta ku qoran sidoo kale meeshan waxa weeyaan stemku waa 2 baad ku qoraysaa waa 20 marka inta 0 tan waa 20 3 dan waa 23 meeshan waa 25 marka tirada weyn oo ah tirada tobnaad oo hadda meeshan laba ah ayaa waxa ku noqonaya stemki intan kale waxay noqonayaan leaves meeshan hadda saad u akhrinaysaa 58 oo kale meeshan hadda column-kan row-gan 58 waxa weeyaan hadda aragtid 3 dan waxay ku fadhidaa 30 iyo wixii ka koreeya marka 3 wuxuu ku noqonayaa stemki 1 2 2 2 2 3 6 marka meeshan waa tani waa 31 32 32 32 32 3 33 36 soo ma marka tiradan saddexaad waxay noqonaysaa stem tan waxay noqonaysaa leaf sidoo kale meeshan 4 waa 40 tirada tobnaad 44 ku qoraysaa inta waxa weeyaan waxa noqonaya leaves marka inta waa 43 44 44 45 soo ma marka meeshan 5 kana waa stem bay noqonaysaa tiradii tobnaad
waa 5 konton bay matalaysaa marka 1 kan waa 51 52 57 marka okay intaas weeyaan hada wax kale ma jiro waa intaas bay noqonaysaa hada stem and leaf ka lagu sheegay waa midaas hadda marka aad inaad akhriso way ku fududahay waxaad arkaysaa daatadaadu inay u badan tahay ama classka ugu badan uu yahay 31 ilaa laga gaaro 36 because asaga u dheer samaritin 31 ilaa laga gaaro 36 ayaa wuxuu yahay the highest waa midka ugu badan waa classeska daatada ugu badan haysta سواء كان طبعا كلاسك ugu yar waxa weeyaan ama aadka ugu yar waa midka ugu sareeya oo ah ii sheegtay كلاسك oo hal data bis uu qaba waa midkan 10 ka yar oo iska 2 ah samadan garan marka kan wuxuu noo noqonayaa highest class كان wuxuu noqonayaa lowest class samadan garan marka adiga hadda markaad fiiriso stem and leaf chart-kaaga markaad fiiriso waxa weeyaan waxyaalaha aad akhrin karto waxa weeyaan 2 kilograms per day way yartahay because hal data hal mar bay dhacday laakiin konton waxay ka badan inuu kilograms per day inuu dhaco waa suurtagal sama because at least waxaan haynaa 4 maalmood oo kilograms uu ka badnaa konton sidoo kale waxaan haynaa ilaa iyo 4 1 2 3 4 1 2 3 iyo 4 soo garan marka waxaan haynaa ilaa 4 maalmood oo kilograms uu ka badnaa 43 mar waa dhacay mar 44 baa la sameeyay markan 44 kilograms baa la sameeyay marna 45 kilograms baa la sameeyay marka middan waxaan u maleynay waan khalday konton kilograms per day waxa weeyaan ugu yaraan waxay dhacday 3 jeer yani ugu yaraan ayaan dhin laakiin daatadeena tan waxay tusaysaa 3 jeer ama 3 maalmood inuu the number of kilograms la sameeyay oo konton ka badnaa ugu yaraan 3 maalmood inay the number of kilograms la sameeyay ay ka badnaayeen konton okay walaalayaal waxa weeyaan waxaan rajaynayaa inaad ka fahanteen waxaan stem and leaf plots wuxuu yahay habka loo isticmaalo runtii waa method aad isticmaali kartid daatadaadu markay rabtid inaad fiirisid adigoona sameynin ii sheegtay grouped frequency distribution inaad fiiriso daatadaada alleele maxay u badan tahay maxay u yar tahay kalaaskay u badan tahay kalaaskay u yar tahay samadan garan wax saas oo kulli ku tusaya question kan waa isku day kartiin ama example kan kale home task ahaan u sameeya practical bookana way ku taalaa bookeni elementary statistics marka midkan idin kula sheegay Facebook page-ka marka bookaas waxa weeyaan question fara badan waa qabaa oo exercise ahaan isku daya ansaasna gadaal waa ku qabaa waad ka fiirin kartiin waxaad heshiin waad barbar dhigi kartiin waxa ansada book uu sheegay okay insha Allah cashirka soo socda waxaan ku bilaabinaa chapter cusub chapterda saddexaad aan bilaabi doono insha Allah cashirka soo socda waxa weeyaan data description ayaan kaga hadlaynaa marka intaas waxaan nooga eeg frequency distribution and graphs chapterkii labaad cashir baa jira aan ka booday waxa weeyaan misleading graphs waxyaalaha keenaya graafku inuu misleading noqdo iyo cashirkaas misleading graphs ku saabsan kaas iska daawada iska barta idinka on your own waa iska akhrin kartiin buuguna ku yaala waa inta ku kulmi doona insha Allah cashirka soo socda mahadsanidin dadka ku cusub channelka subscribe dhaha fi YouTube iyo Facebook sifa wixii naga cusbanaadaba oo idin ku soo dhaco aadna uga faa'iideysatiin walaalihina la share garay mahadsanidin